gudoomiyaha gobolka Daadmareer ayaa maanta magacaabay gudida qabanqaabada maalinta 18 May oo fooda inagu soo haysa isagoo gudoomiyuhu tilmaamay inay ka shaqeyn doonaan dardargelinta iyo qabanqaabada maalintan qaran isagoo gudoomiyuhu sidoo kale dadweynaha gobolka Daadmareer ugu baaqay inay weyneeyaan isla markaana u diyaar garoobaan maalinta qaran ee 18 May maanta waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa gudidii qabanqaabada 18 May sanad guurada 3-aad runtii oo tii sanadkii hore mid ka ballaaran inaynu qabanno aynu doonayno insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa in caalamka aynu soo bandhigno munaasabadaas 18 May ee qarannimada Soomaaliland inaynu dabaaldeg qiimiye qaayale aynu samayno taas oo dhalinyaradii iyo fanaaniintii sanadkan heeso cusub loo sameeyay gobolka in ay ka soo qayb geli doonaan oo ay iyaduna qayb ka noqon doonaan sida Ingiriiska oo kale ay fanaaniintu uga soo qayb galayaan in gobolkeena ay uga soo qayb geli doonaan gudidaas waxa gudoomiye u ah duqa magaalada Oodweyne Mr. Cabdixakiin taliyaha qaybta booliska isuduwayaasha laamaha dawladda afarta gudi xaafadeed gudiyadooda fulinta ururada dhalinyarada ururada haweenka xogayaha gobolka iyo xogayaha dawladda hoose iyo xildhibaanada Yuusuf Maxamed iyo Maxamed Jaamac iyo Mr. Shukri Maxamed Umar iyo Cabdilaahi Ali Barre insha Allah tacaala waxaan doonayaa gudidaas maayirku chairmanka uu yahay inay si muuqato oo baaxad leh ay u soo bandhigi doonaan xuska sanad guurada 3-aad ee 18 May ee qarannimada Soomaaliland. Muuse Salebaan Maxamed, telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Oodweyne.